بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba maalintan oo ah 3 guuradii la soo noqoshada xorriyadda ummadda reer Soomaaliland wadan dheer baa loo soo maray inaan halkan maanta taaganahay si hawl yar lagu iman dhalinyarada dhalan waa laga yaabaa inay wax kastaba inay ficnaayeen u haystaan laakiin wadan dheer baa la soo maray anu wax khudbadda madaxweynaha idin akhri laakiin in yar oo dardaarana baan odhanayaa dardaarankaygu waxa weeye bahashii qabyaalada ahayd xalkahay goosatay qabyaalada iyo dowladnimana meel ma wada degaan bahashaa ha la iska daayo xisbinimo ha lagu tartamo waxaan kaloo soo jeedinayaa xisbiyada qaranka iyo ururraba ha ku tartamina qabyaalad xisbinimo ku tartama waxa kaloo iska ilaalisaan erayo xanaf leh oo aad isku marisaan hawada oo dad kale dhagahooga wax u dhima niyad dadkuna ay khaladaad kale u sii fahmaan oo tafsiir kale ay u qaataan taana waxaan idinkala talinayaa ololihiina doorashada inaad ka daysaan waayo waxaan xisbiyada loo bilaabay inaan kaga dabaalano qabyaalad laakiin imika xagga sare soo martay baashi qabyaaladda baa la isku faanayaa qabyaalad markay timaadana dowladnimadu way naaqusmaysaa dardaaran taasaan ka odhanaya waxaan kaloo kula talinayaa madaxda hadda joogta iyo kuwa kale ee laga yaabo inay waqti kala yimaadaanba inay ummadda ay u garsooraan oo xil badan ma jiro dadka loo qabiyay waxa yara jira ay wada gaadho dadka oo dadka oo saligu halka ka muujiyo waxaan rajaynayaa horumar caafimaad doorashada haddana inay nabadii loogu dhamaato ka helana loo haleeyo ka laga helina oo haleeyo. Assalaamu calaykum warahmatullahi